waxaan ku sugannahay deegaanka Carraweyn waa inta u dhaxaysa degmada Badhan iyo Hadaftimo ee gobolka Sanaag. Degsimada halka degan intooda badan ee aan maanta aragnay xeryaha sidan ay ugu dhisan yihiin. Halkan ma aha aqal la seexdo laakiin waa xero ari ku xerooday oo dhagax la isa saarsaray. Maxamedow bal xerada nooga war. walaal gaali sida arkaysan nin deegaanka kan Carraweyn xeriyo waxay ka wada samaysan yihiin sida waa dhagaxa oo la dhisay sababtana waxa keenaysa meeshiyada oo dhirtu ay ku yartahay iyadoo dhir yar ay ku taalo oo aanu dhaqaaleynayno inta ka bacdi meesha tan dhaxan aad iyo aad ba ka jirta waqtiga kale nadarta ku jirno qababaha sida darteed waxnu door bidnay inaanu ariga u dhisno daaro oo aanu guryaha u dhisno oo saasi ariga dhaxantina kaga badbaadaya marka inaad argacay sababta nagu dhalisaan xiriyahan dhagaxka saatan isku saarsaaro intee qaadataa in la dhiso xeradan xeradatan aad arkaysaa waxay qaadanaysaa adigu muddo adigu isbuuc toddobaada waa la dhisayaa markaan dhagaxa waa fahmi kartaa adigu maxaa hasan oo tacabka galay buuraha saaran intii la eegin waad garan kartaa marka farsamo iyo injineer iyo ma baahan tahay inay danto soo looga macdo khasab waxay doonaysaa qofkan dhisaya oo dhagaxkan saarsaaraya inuu yahay qof maskax u leh oo taqaqus u leh waxa weeyaan nadarto darbiga kan waad arki kartaa ariga ku jira halkaas oo ay ku guurto arigii waxa manaya waa jabaya in waaba ku fadhiisanaya dhagaxi waa wanaag ku fadhiisanaya marka sida darteed waxa la doonayaa inaad maskax u haysatid darbiga kan saarsaaraysid marka ujeedka waxa loo sameeyo ma in dhaxanta laga cararayaa si waa inaad dhirta dhaqaaleynaysan maxay tahay walaal gacaliyo horta laba qodob ba meeshatan adigu ujeedkeegu yahay mar waxa weeyaan horta dhaxan baa laga baqaya oo dhaxantaas arigii meel dugsi ah fiican oo xooli ku galaani inta ka bacdi dhirtana waa la dhaqaaleynaya aad iyo aad baan u dhaqaaleynaa hadda deegaankan aynu joogno waa arki kartaa inta isheen ay qabanayso geed ama laba ka muuqda sida darteed wax noo kaliftay inaanu dhaqaaleyno dhirta meesha ku taal waayahay ninka dhisay marka ma idinka dhisay mise engineer baa keentay waadiga le dadkii maskax bay wixii u baahan tahay xaqiiq ahaantii xeratan maanta hor taagan tahay aniga oo Maxamed oo hor taagan baa dhisay anigana waxa igu dhalisay inaan dhiso waxa weeyaan xiriyo badan oo horeeto ayuun baan tababar ku soo qaatay iyo sida dhagaxa la isku saarsaaro qaabeyshankiisa marka taas igu dhalisay inaan xerada dhiso oo arigi aan u dugsiyo dhirtiina anigoo aan goynayn oo aan wadadii ka soo qaadanayn marka sababtaas igu dhalisay waayahay dhowr xera ay muuqda halka mid ba ka muuqata halkan mid guriga xitaa ardaagiisu waa dhisan yahay arintaasi intee qaadatay in la dhiso muddo intee la egbeysay jirtay inaad xerada markii aan hadeerta aan kaaga warbixiyo waxa halka ay ka dhisan tahay waxaan dhisay 2017 ayuun baan gacanta ku dhisay markii xerada tan diyaadadu hadeertan ay waa maray kartaa 2017 ka dambeysay garabada tan aad arkaysid oo halka kana waxa sababta ay ugu dhalisay dhaxanta in ay aqalladii noqdaan meel dugsi ah aniga aan ood iyo qudax mid doonana saastoo ay ugu dhalisay abaara dhacay waa la guuro waa la naqraaco meel badan baa la tagay aduu 2017 ilaa maanta halka degnay si iyadoo sana ka guurtaa sidee waxay inaad argacali ma 2017 markii la isku soo noqday oo abaartii laga soo noqday markaas ayuun baan xerada tan laakiin bariga abaartii waa ka guuri ku soo noqday ma laga degaa marka guriga adaan ma waxa weeyaan waa waa degaan meeshtan Carraweyn la dhaho nin kasta gurigiisa laga degayo saas ugu dhisay sarbadiisi marabanaadkiisa garabadiisi aqaladiisa waxa weeyaan laga degayo markii ay meeshina ku qabto baad imanaysaa oo degaysaa waa gartay wali halisi ma ka timi in ama ay ari ku dunto والله حتى غريغي maadaama ay sidan ku tahay wallahi inaad argacay horta aniga ma wax mushkilada halkaas igama soo bixin laakiin si way dhacdaa way badan tahay ay dunto oo ay ku dunto ariga wax baqtay wax jajaba oo noqdo laakiin aniga ilaahay bay iguma keenin guriga kale oo maadaama sidaan dareemayno dhulkani qabo u badan yahay gobolka Sanaag waliba inta buurta xigta oo hadaynu xagan iyo cashar la sii aado ay ka sii dhaxan badan tahay dhulkan guriyaha sidaasi ma habkana u diyaarsan yihiin mise waa ka duwan yihiin inaad argacay ma meesha tan joogno oo Badhan iyo Hadaftimo inta nawaaxigan u dhaxay Sanaagba aad waxay u dhisayeen xariyo dhagaxaas soo la isku saaray way markii meel aan hadeerto ku raad halkaas oo aaga kana ma garan karo walaal
muhiimaduna waa in dhaxan laga carro muhiimaduna waa in dhaxan laga carra la dhaqaaleeyo dhirta deegaanka ku taala si aan dhirta xaalufba imanay markii aan meel kasta xero ka dhiso sidaynu wada ognahayna ooda waxaa la yiraahdo horta way iska dhamaataa waxa weeyaan geedkii mar haddaad ood ka goystid oodu iska baqtiyaysaa qodax bay noqonaysaa markii si aan maalin dheeri dhirta loo soo goyn dhagaxa kanisa waxa weeyaan inta aad joogtid waa kula jiraya